xalqadani maanta waxay ku bilaabmaysaa gabadhaas waxay ku dhacay cudurkii haliska ahaa ee waddanka Japan haystay. Waxa soo galay boyfriendkeeda markuu arkay girlfriendiisa dhulka taala wuxuu arkay inuu cudurka ku dhacay oo jid kamid ah qaybkeeda uu cudurka ka soo saameeyay. Markaas gudaha waxa soo kooxii GHQ waxay bilaabeen albaab ku soo furaan, laakiin wiilku kala cararay girlfriendiisa waxay yiraahdaan waan hubnaa meesha inaad joogtid. ninkii kooxda ugu sareeyay loo yaqaan Sergey wuxuu yiraahdaa waan hubaa inay meesha joogtid. wuxuu bilaabay inuu qoryo dhulka yaaliyaalay ee aan cudurka ka hadhay inuu kor u soo qaado. dhanka kale kooxii GHQ waxay isku diyaarinayeen geystaan qarax kaasoo u geysan doona diyaaradaha. waxa dhahay wiilka shuna soo raac tareenka waxaana la hadashay gabadh ardayda isku galaas yihiin waxayna ku tiraahdaa shuu wax ma rabay inaan ku sheego bas ku maxaa rabtay inay sheegtid. markaas iyadoo rabtay inay ku tiraahdo ana uxubba ayaa waxa soo dhex galaanin waxa dhahay ninkii dhulka kaga daatan kaneenadii dhulka ayuu ku dhacaa. markaas shuu wala hadlo wuxuu ku dhahdaa yaa tahay adigu ninkii waxa dhahay inuu hoodii gaar xunaa ama koofidii inuu iska qaado wuxuuna soo eega shuu. markaas shuu markuu arkay ninkii uu naxaa ninkana iyo shuu ina waa walaalo sa ogaad asxaabi wuxuuna ku dhahdaa hay meesh maxaa ka qabanaysaa maasa gabadh wax ku tiraahdaa miyaas hore isku taqaaneen masu ku dhahaa waxaana nahay walaalo. waxa dhahay wiilka shuu iyo ninkii kale takaarada lagu magacaabay inay soo baxaan waxay soo aadaan meel qalcado meesha qalcado markii waxaan arkay gabadh ka daba shaqeynaysa. markaas waxa dhahay wiilka shuu inuu soo galaan qof wiilka shuu iyo ninkii takaarada lagu magacaabay inay soo aadaan gurigoogii. wiilka shuu markuu soo aado guriga wuxuu arkaa gabadh Samukaa lagu magacaabay iyadoo cudurka saameeyay una naxaa wuxuu yiraahdaa maxaa helay gabadhan suuna cudurka ku dhacay. markaas waxa ku yiraahdaa adoo ugu dambeey waxa ku dhacay cudurka haliska ah ee dad fara badan noloshooda galaafsay. mid kale markuu qofka cudurka ku dhaco qofka jirkiisa markuu saameeyo qofku wuxuu burburayaa sidii ciid yacni uu daadaadanaya isagoon lahayn wax dhiiga wuxuu noqonayaa sidii ciid camal oo kale uu daadanaya qofku. isla waqtigaas waxaan arkaynaa kooxda GHQ oo iyagana kaamira ku jaasuusaya waxayna dhageysanayaan wax walba ay leeyihiin labada wiil is weydaarsanayaan wayna ogyihiin wiilka shuun ku qayb yahay kooxda Barlow. say labadii wiil isku hadlayeen maalintaas oo dhan waxa dhacday in habeenkii la gaaro wiilkii shuun wuxuu garaacay gabadh curyaanta ee loo yaqaan Shunamia. gabadhan wuxuu ku yiraahdaa xagan waxa taala gabadhaas oo cudurkii ama fayraskii saameeyay waxaana rabaa inaad daweysid maase ku tiraahdo xagee joogtaa maase ku tiraahdo walaalkii la joogaa walaalkiina gabadhay saaxiib ahayn girlfriendiisa ahayd ayay yacni cudurka soo saameeyay oo waxaan rabaa inaad ka caawisaan daweyn lahayn. markaas wiilkii shuu waxa dhan soo gala meeshaas markuu soo galo askartii GHQ waxa wiilkiina soo weerarto oo rasaas ku soo fasaxdo. wiilkii shuu wuxuu isku dayay inuu soo saaro qalabkii oo ka soo saaray sida sakaraada. markaas sakaraada uu diiday wuxuu ku yiraahdaa iga tag buu ku yiraahdaa maxaa iga rabtaa gacan xagee u soo fiiqaysa maase ku yiraahdaa awoodayda dhan aan ku badbaadinay fanacsiyo. markaas uu ku yiraahdaa maxaan ka fahmaa awoodda noocan maxay tahay maase ku yiraahdaa adoo arki doontaa waxa wiilkii inuu qasab kaga soo saaro awoodii inuu isticmaalo oo meesha dhan qarax ka bilaabo. waxa dhada alayga robotiskii yacni kooxda GHQ inay soo galaan meeshii gabadhii oo Samukaa ee miskiinta ay cudurka hay ayaa mid kamid ah bilaabay inuu robotki inuu ku dalaco gacantiisa oo wajiga u galiyo xagga sare. kadib gabadh waxay bilowday inay qayliso. markaas wiilkii shuu waxa dhaay xanaaqo waxaana imaaday meesha Sergey kaasoo hogaamiyaha kooxda GHQ wuxuu bilaabay wiilkii shuu ku jajeeso wuxuuna yiraahdaa ninka robotka yacni ku dhex jiro siida gabadh. kadibna ninka robotka wuxuu bilaabay inuu siida gabadhii oo gabadh dhulka si xun uga soo goodo. wiilkii shuu waxa dhaay gabadhu dhankeeda soo aado oo caafimaadkeeda yacni weydiiyo laakiin maxay caafimaadka ugu taalaaba gabadh waa gabadh suuxsan miyir dawalsan. wiilkii shuu markuu xanaaqo ayaa hal mar waxa dhaay gabadha ila hadasho wiilkii wuxuu galaa caalam kale waxayna bilaabeen soo xasuusiso wiilka takaraada markii ay yaraayeen iyo yacni noloshii hore ay bilaabeen soo xasuusiso iyo saacad yar oo yacni ay lahaan jireen oo isku garan jireen ay yiraahdeen mustaqbalkan haddii aan kala lumin labadeenu saacad yar isku garan doono midka kale saacad buu haystaa yacni hadhow ku xasuusan doona mustaqbalka haddii kala lama. wiilkii shuu xagaas waxa dhayn ka dareema xamaasad aad u weyn oo meeshii dheneed baqalaasa ka bilaabo oo yacni soo badbaadiyay wiilkii sakaraada iyo gabadhii Samukaa ee aan cudurka qabtay. wiilkii sakaraada uu yimaaday wuxuu ku yiraahdaa walaalka baan ahay may xaqiiqsatay maase ku yiraahdaa marka hore kula kafsameeyay ee ani walaalkii ma tihid waxaana tahay qof u eeg maase shuu wuxuu ku yiraahdaa boon ka shakisana ee waxaan ku maleynayna walaalka ahayn laakiin hadda ay xaqiiq ku noqonaysaa oo saacadii markaan yar isku garan jirnay ilaa hadda wad haysataa waxaan ay cadeysanaa haysatay saaxiibada ay maanta soo dhiibtay waatana saacadii aniguna waan haystaa saacadii. markaas waxa xagaas in laba qof iska kartaan oo walaalo yacni sidii hore iska dhow ay noqdaan. markii hore shaki iyo waxyaabahaas ku jireen laakiin hadda waxay noqdeen laba walaalo yacni dab isku wala nool. intay hadalladaas oo dhan dhex marayaan wiilka sakaraada iyo wiilka shuu gabadhii wiilka shuu jeclayd way dhageysanaysaa oo dhan ay kala socotaa. markaas wiilka shuu wax bilaabay dibadda u soo baxo wuxuuna la kulmaa gabadhii kadib waxa dhayn iska sheekaystaan. markaas waxa dhayn ninkii gaay inuu la kulmo hogaamiyihiisa waxayna ka sheekaysanaan qarax ay fulin doonaan kooxda GHQ ee mar dhow dhici doona waxayna yiraahdaan inaan ka hortagnaa qaraxaas intaynay fulin kooxda GHQ. dhanka kooxii kale GHQ iyagana way diyaar galoobeen waxayna rabaan inay qaraxii fuliyaan hogaamiyuhu ugu sareeyay kooxda GHQ kaasoo loo yaqaanayaan gabadha waxa inay soo dhawaato oo gacantiisa saartay gacantu ka ay maadada halista ahayd oo meesha maxaa ka dhacay weydiin hoos laaban wiilkii shuu waxa wiilkii shuu iska imaaday iskuulkii isagoo iska dhex maray iskuulkii waxa la hadlay
mid kamid ardayda kadib wiilkiisu wuxuu sawirtaa inuu ninka yahay gabadhii yani cudurka qabtay ee fayraska ahayd kadib waxa dhacay inuu wiilka ka daba qaylo ku dhaahdo hay qabiisi waan ku baryaa fayraska hay qabiisi wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo saaxiibada soo dhawaato waxay bilaaway dejis raado laga wuxuu ku dhahay iga fogow ninka wuxuu rabaa inuu fayraska qabiisiga qabto waxa soo dhaahdaa wiilkiisu isaas qaylinaya ayaa dibadda u soo baxaa waxaana la hadashay gabadhii Shinomiya waxay ku tiraahdaa dagaal aan gali rabnaa imna la galaysa masuu ku dhaahdaa anu dagaal hadda diyaar ma yihiin marasa gaayb la hadlo wuxuu yiraahdaa joojib ku dhaahdaa ninkan shuu lagu magacaabo naga daxba noogu yeeri awoodiisa faa'iido kulli nooma laha shuun wuxuu dhahay madax kaga qabto baskooldi oo ku yiraahdo dagaaladan galayna la gal wa ilaa hadii kale nooga baxo waxda baarloor wiilkiisu waxa in qolkiisa iska yimaado qolkiisa markuu soo furo waxa la hadashay gabadhii Inori gabadhii waxa dhahay sawirto yani gabadhii cudurka fayraska qabtay kadib wuxuu bilaabay wiilku inuu qaylo gabadhii waxay ku tiraahdo maadadan qabso maadadii waxa dhahay inay ka tuuro oo gabadha ku qayliyo ku dhahay hay soo dhawaan ku baraya dhanka kale kooxii GHQ waxa inay isdiyaariyaan oo dagaalka ay rabaan inay meesha qarxiyaan toga kamida oo kooxii baar loo rabtay inay ka hortagto in qaraxasi fuula ayaa waxa soo fuula wiishta ninkii hogaamiye u ahaa ninkaasna waxa kula jirta gabadhi markii hore aan soo sheegay gacantiisa taabsanaysay gabadhaasi ninkaasna wixii dhaxmaran hay weydiin kadib oo wiishta ku jira wiishta waxa inay isfurto waxa la arkay wiilkii yaraaye yani ninkan hogaamiye ahaa wuxuuna arkaa aabihiyo hawlo kale ku jira markaas uu qaylo ku yiraahdo 40 sano wax ka badan waxa sameeyay maanta waa xaalad halis ku jirno ayaa waxa sameynaysa basoo cara oday waad asaasaqda malaha dhalameed taalena hadda inuu xanaaq darteed kala jabiyo wiilkii dhanka kale kooxi baar leegana way istiyaarinayaan oo waxay rabeen soo galaan meesha yani qarax ka fulin lahaayeen oo isay khalkhaliyaan kaamiradaha ay ka weecanayaan oo kaamiradaha ay jajanaysa inuu arag ugu dambeyn kooxdi gaay hogaaminayay si isku qarqarinayay waxayna yimaadaan meesha laga maamulay diyaaradda kadib waxa dhigay qarax ku waxayaan kadib qarax markuu qorxo meesha gudaha soo galaan waxayna arkaan diyaaraddaas qoraal cas wax loogu dul qoray gaay waxad ku jirta jannada hadda markuu saa u maqlo wiilkiga waxa dhigay inuu indhihi yani kala taago isku naxo dhanka kale hogaamiye kooxda GHQ USA wuxuu bilaabay inuu sanad button taabto oo buttonkaas ku dhex qarxinay diyaaradda wuxuu yiraahdaa fursad inuu ka faa'iisto buttonka inuu taabto ugu dambeyn haddaba uu saaxiibkeeni shuu sukaansi iska jira wuxuu u yimaaday gabadhii wuxuuna ku yiraahdaa hay saaxiib waxay la qabo kadib gabadha waxay bilaabay baax ku jirto yaa horasha loo rooday ku tiraahdaa waxaan ugu leeyahay isla markaas waa dhacay inay xaaladu isbedelaan oo qaraxii meeshka bilaamo kooxda GHQ kooxda Barlos galaan waxaana soo baxa laadarka ugu weyn animega kaasoo loo yaqaan Kaido wuxuuna yiraahdaa hadda Tokyo waxay ku jirtaa gacantayda maadada halista ahayd ay wuxuu bilaabay atmosphere ku sii daayo dadkina waxa inay simoobaan dadkii magaalada joogo dhan waxa in virus uu wada gudbo oo qaar markuu viruska markuu soo saameeyo ay burburaan waxaana soo baxa wiil loo yaqaan Yu wuxuuna yiraahdaa Tokyo waxaan imday xilli ay baahnayd una dhoola cadeeya haddaba Yu wiilkaas yahay markaas waxa dhahay dadkii magaalada joogo inuu cudurka saameeyo qof walba cudurka uu qabto dadkina ay wada geeriyoodeen magaaladuna waxay isku bedeshaa dekan gabadhii Inori meel iska taaganay waxa aragtay gaay oo cudurkii saameeyo kadib ku soo carartaa waxayna bilowday wiilkii inay dawo istiraado laakiin ma taqaan dadka loo daweeyo gaay wuxuu ku yiraahdaa oda carar buu ku dhaca intuu kugu dhicin cudurka hore meesha ka carar ku dhaca xitaa cudurka ugu dambeyn wuxuu soo saameeyay kooxda GHQ markaas wiilkii yaraa lagu magacaabayeen wuxuu bilaabay inuu aabihiisa naagtii yani la socotay saaxiibtiisa intuu qabto ayuu xabad ku tiriyay ayagana xagaas ka taqalasa markii kooxda GHQ soo weerarto cudurku waxay dhacday ninkii hogaamiyaha inuu mid ku soo bado feer ku jiro wuxuu ku yiraahdaa adiga waxaan sabab ahaa in maanta ay cudurkana soo saameeyo kale gabadha shaqaalada waxay bilowday in dawada loo baxday istiraado laakiin ninka la wax isku day in xabad ku qabto laakiin ka qalay wax iska daa xabad maxaa ku taayta dad ku qabatay kulli way baxsatay kale ninkii kale hogaamiyaha wuxuu bilaabay in la dilo aniga kale yani GHQ isagana hogaamiye waa inuu dilo yiraahdo adiga cudurka saameyn noogu ahaa inaan dhimano maanta ma ka xaaxaabi adiga sababta cudurka kugu dhici way maxay tahay maasoo ku dhaan waxaan haysaa dawo oo dawadaas in kaga badbaaday dhanka kale gabadh waxay bilaabeen dawada la soo cararto haddaba away saaxiibkeen shuu isagu wuxuu iska joogaa iskuulkiisii waxaana ardaydii meel ayaan lagu ururiyay waxaan lagu dhahay dibadda qofkii soo baa cudurka ay saameyn leh ee isku soo bixina ardaydii xagaasi ku wada jiraan wiilkii shuu wuxuu sameeyay ma garanayo wuxuu yiraahdaa waan tagi doonaa yani waxaan tagi doonaa kooxdii Barlord oo soo badbaadin doona adduunkan aanu imika ay baahan yahay asaas ardayda ka dida ku yiraahdo meekada ku yiraahdaa bixin cudurka saameyn ugu yeelanay intaana talaabo aad qaadinba cudurka ku soo weeraray gabadhii Inori la joogta yani gaay ayaa waxay aragtay gabadhii la caarisay dawadii kadibna ku soo carartay waxay isku daydaa in disho maasa gabadh waxay ku tiraahdaa waxaan miskiin iska daydaa markaas way iska diisay gabadhii waxay tiraahdaa tan waa miskiin biska gabadh miskiinta ah ma haysato dawadii saxda ah laakiin waxay haysatay jihaaskii lagu maamulay dawada ama yani waxa jira wax yar oo lagu furo dawada oo yani qalabka iyadu haysataa taasoo yani dadkuna u yaqaanin dawo soo laabana wiilka shuu wuxuu bilaabay gabadhii saaxiibta ahayd inuu isticmaalo awoodiisa ka soo saarto yani qalab sida xadka ah kadibna horobadka yaraa Inori ay lahayd ayuu wuxuu bilaabay inuu ku duuduubo xadhigii kadibna waxa dhahay horobadka yaraa inuu soo sar kaco markaasuu ku yiraahdaa saan u badbaadiyo robotka yaraa uu soo sar kacay aynu awoodeen adduunka u burburiyo inay wax yarba naga codsanaya inay aqbalaysiin hadda wuxuu ku yiraahdaa maxaa naga codsanaysaa wuxuu ku yiraahdaa waxaan rabaa inaan isticmaalo awoodiina ku jira qalbiga ee fadlan iyo
aqbala kadibna waxa ku dhahan waayahay wayna aqbalaa markay arkaan gabadha yacni saaxiibta oo la ah wiilka yar si u badbaadiyay yacni suu qalabka ugu badbaadiyay robadka ahaa dhanka kale gabadha waxay bilowday Inori inay soo dul istaagto dabaqi waxayna tiraahdaa shuu kulmee xageed martay waan ku baahanahay xilligan ee soo bax fadlan oo ku baraya kadibna waxay bilowday inay gabadha heesto waxayna tiraahdaa ay baybele wadnaha barka dooran kaysalay aniga aadi bay mustaweyna markii gabadhi heesto waxa dhacday in caalamkii waxoogaa soo aad u soo noqdo oo yaan cudurka yar baabo oo heestay caalamku yar dawo hees baa caalam dhan daweynaysa khiyaaligan laga dul qaaday ka hor dadkii cudurka wada haysteen waxa dhacay in xoogaa in soo wada caafimaadaan cudurka yar baabo xitaa gaay laftirkiisa waxa dhacay in cudurka xoogaa ka yar baabo laakiin ku soo laaban doona markaas uu ku bilaabay inuu isticmaalo gaarigiisii oo yacni soo weeraray kooxdii oo meel iska wada taagtaagnaa waxay dhahdaan kooxdii GHQ waxa soo laabtay bahalkii badbaadin lahaa caalamkan iyagoo necab yihiin wiilka yar soo laabto una badbaadiyo markaas waxa soo galay wiilkii yar meeshii wuxuuna bilaabay inuu xaaladii u qaso oo yacni qarax meesha ka bilaabo dhanka ninkii yar ayaan lagu magacaabay wax bilaabay inuu robotkiisa soo sare kaxsado oo yacni isla wiilkii yar bala dagaalamaya wiilkii soo isticmaalay qalabyo dadka kale yacni ku jira qalbigooga oo dadku wada siixsan marka laga reebo wiilkii yacni walaalka ahaa in wiilkan kaas oo diiday inuu qalabkiisa isticmaalo markaas wiilku wuxuu yimaaday gabadhii Inori wuxuuna ku yiraahdaa Inori soo fiir kadib Inori markay aragto wiilkii waxa dhacay in farxad ku tiraahdo waqti fiican bal imata saaxiib markaas wiilkii Inori taas ku eegay waxa Inori xageeda dambiin ka soo baxanin wuxuuna bilaabay inuu isticmaalo awoodeeda Fordka ahayd ku jiray qalbigeeda wuxuuna ka soo saaraa kadib wiilku isku naxaa wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo laakiin taas uma suurta gasho ninka soo baxayna waa ninkii loo yaqaanay Yo kaasoo markii la hayaa yani wax Tokyo waxa uu soo baxay mar ay baahan tahay laakiin kuma baahnay imika waxa rabtaa inuu sii qastay adigu adduunyada markaas waxa dhacay inuu soo weeraro wiilkii laakiin weerarku wax isku dhiga gaay kadibna gaay waxa dhacay inuu dhaawac markuu aad ugu dhaco dhiig baxo kadib wiilku wuxuu iraahdaa gaay hayga dhimo ku baraya wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo markaas ninkii wuxuu isku tahay inuu gabadhi la baxsado caalamka leele aad isdhaahdo laakiin wiilka waxa bilaabay ka soo daacaro caalamka sagna la soo galo faj'atan dakhala caalam thani waxaana tusay wiilka yar markuu yaray isagii walaashii waxayna bilaabeen inay iska sheekaystaan iyagoo iska sheekaysan waxay maqlaan wiil yar oo yacni dhanka webiga ka soo dhacay oo meel iska yaala markaas wiilka yar yimaadeen waxna ku yiraahdaan caafimaad qabtaa markaas wiilku wuxuu ku dhahan caafimaad qaba markaas wiilka waa garanaysiin waana wiilkii gaay ee iminka weynaaday markaas gabadha ku tiraahdaa hay magacay ku tiraahdaa laakiin wiilka magacu ma sheego markaas ku tiraahdaa magacayaan ku bixinaya magacayna waa Terasada waxa dhacay in labada wiil inay noqdaan saaxiibo oo wiilka kala tababaro wiilka yacni shuu wuxuu rabaa inuu tababaro ninkan gaay ee imika ugu sareeya oo yacni biriijada ama boondooyinka uga badbaadinay kolba aan ku soo laabanay caalamkeena caadiga ahaa gabadhii yar ee miskiinta ahayd ee Inori wax lagu xiray meel jeel ah oo yacni ay ka soo bixi karin dhanka caalamka kale saxda ah dadkii wax soo weeraray cudurkii mar labaad oo ayna si ka daran u gumaado cudurkii markaas wiilku wuxuu isku dayay inuu talaabo qaad tiraahdo laakiin seefa lagu qabtay waxaan ugu rahaa mar dambe hada dhaqaaq istiraahdo madaxa uu ku daayay hadaba xasuusan ku soo laabano waxaan arkay wiilkii yar walaashii oo ayna isla jooga gabadhii yar waxay ku tiraahdaa walaal waxaan rabaa inaan guursado maasoo ku dhahdaa way yaa rabtay inaad guursatay maasoo ku tiraahdaa waxaan rabaa inaan guursato Terasadahan waa wiilkii gaay lagu magacaabay maasoo wiilku ku dhahdaa aabe alayk ma wiilkii miskiinka ee webiga soo badbaadinay ayaa waxaan rabtay inaad guursatay walaasha waxa kama fulinay iska taa maasoo wax ku tiraahdaa walaalkan kula kaftamay kaliya ee wax kale oo jira ma jiraan waxaan ku soo laabanay caalamkeena caadiga ah ninkii hogaamiyaha GHQ wuxuu bilaabay inuu isticmaalo midi uuna isku saaraa kadibna dhiigiisa wuxuu bilaabay gabadha faruuraha u mariyo oo uga dhigay xamuur markaas wiilku markuu arko waxa soo kale intuu xanaaqay ku soo cararaa laakiin wuxuu arkaa il weyn ilahaas inuu hanjay wiilku waxna ku yiraahdaan mar dambe talaabaha qaadin markaas ilahaas waxa maamulaya gabadha yacni wiilka ay walaalaha ahaayeen waxaana bilowday in wiilka yar madaxa ku soo taagto yacni isha ka gelisraado laakiin madaxii waxa ku dhacay rasaas oo waxa soo tuuray wiilkii gaay uu meesha inuu imaado markaas ninkii hogaamiyaha wuxuu bilaabay inuu isticmaalo jiinkii lagu soo saaray awoodaha oo gabadha awoodeeda wuxuu rabaa inuu ka xado oo isagoo awood u gasho jirkiisa ama qalbigiisa way gabadha Inori waxay istaa awood aad u halis badan oo yacni cid kale haysan laakiin ma taqaan soo isticmaalo laakiin ninkan GHQ kooxda hogaamiyaha u ah isagu yaqaan soo isticmaalo wuxuuna rabaa inuu gabadhan awood ka xado markaas wiilku wuxuu isticmaalaa awoodii ku jirta qalbigiisa ninkan gaay wuxuuna bilaabay inuu soo cararo markaas waxa soo weeraray ninkii kooxda hogaamiyaha GHQ ahaa wuxuuna ka badbaadiyay gabadhii yar ee miskiinta ahayd markaas hogaamiyaha wuxuu isku dayay inuu wiilkeedu soo weeras dhaho laakiin xagga dambe waxa ku soo taagay ninkii yu ahaa khaayinka ahaa markii hore wuxuu bilaabay inuu ka taqaluso oo ninkii yacni hogaamiyaha inuu ka taqaluso ka argoosto ninkan cuqdada u sii ninkan laakiin ninka kale hogaamiyaha isaga ma ogeyn markaas ninkii gaay wuxuu wiilkii yar wuxuu ku yiraahdaa waxa la rabaa tixiyeen la sameeyo yacni nafur weyn in la sameeyo loo baahan yahay ee aniga nafur ka sameynaya ee dil fadlan markaas wiilku wuxuu ku yiraahdaa ma ku dilay mudanahaygi masoo ku dil waa ku qasban tahay sad caalamka kale u badbaadisid aan dhiigay ugu badbaadisid
badbaado caalamka kale oo fayraska uga badbaado balse wiilku wuxuu bilaabay inuu isagoo ku qasban inuu wiilkii Guy uu dilo xagaasna ku geeriyoodo Guy waxaana dhacday caalamku caadigiis ku soo laabto oo dadkii cudurku ay ka baaba'aan gabadhii Inori wiilkiina waxay soo daadeen caalamkii oo caalamkii saxda ay yimaadeen intaas inuu ugu dhamaanaya asxaabi animegi dheeraa 24 xalqo ahaa wuxuuna ku dhamaanayaa cudurkii laga badbaadiyay adduunkii oo yacni wiilkii Guy uu geeriyooday hogaamiyihii ugu sareeyay kooxda Jeejku la dilay ninka kale uu ahaa isna uu geeriyooday wixii la dara ahaa oo dhan iyaguna way geeriyoodaan gabadhii Inori wiilkii Shunayna waxay yimaadeen caalamkii oo nolol fiican ay ku noolaadaan intaasna saxaab ku soo gabagabeynayna muuqaalkeena maanta fadlan muuqaalka dad ku xajay like subscribe maca salaama wa shuufku fi xalqa jaaye